waxaan arkaa arigu inuu badan yahay alaysat hiya allatii tudbax. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu. qisad yar oo gaaban baan inoo hayaa. waxaa la yidhi qisaddu waxay dhex martay mar waxaa la yidhaahdaa ibraahim ibnu adham iyo nin kale. ibraahim ibnu adham wuxuu ahaa caalim zaahid faadil, taabici ma ahayn, laakiin wuxuu ahaa atbaaci taabiciintii kuwii ku sii xigay buu ahaa. marka waxaa la yidhi qisadani isaga iyo nin kale dhex martay. marna waxaa la yidhaahdaa qisadda yara gaaban waxay dhex martay alimaam cali radiallahu canhu iyo nin kale. marka dhowr meelood baan ka akhriyey, laakiin mid ka mida aynu dooranno. akhyaarta idinka oo videoga yar daawanaya insha allah ha ku bakhaylina inaad bardhanka layga inoo saartaan oo sii sheergaraysaan, dadku ha ka faa'idaysteen insha allah. ilaah idin barakeeyo. af carabi baynu ku sheegaynaa, kadibna waynu turjumaynaa si dadku uga faa'idaystaan. waxaa la yidhi rajulun yataxaawaru maca ibraahim ibnu adham raximahullah. ninbaa wuxuu la hadlayey ibraahim ibnu adham. faqaala rajulu, ninkii wuxuu ku yidhi ibraahim, laysa hunaaka shayun ismuhu baraka. ma jiro waxa la yidhaahdo baraka. dabcan baraka waa taqaanin barakada. faradda calayhi ibraahim ibnu adham. dabcan kama uusan helin hadalkaas caalimku ibraahim ibnu adham. hadalku ninkuu yidhi inay barako jirin kama uusan helin. su'aal buu ninka weydiiyey. wuxuu ku yidhi ara'ayta alkilaaba waalagnaam. ninkiibuu ku yidhi miyaad aragtay eyda iyo adhiga? qaala rajulu nacam, waan arkay. qaala ibnu adham, ibraahim baa yidhi hadalkaa, ayuhum tunjibu akthar. keebaa wax badan dhala? macnaha ma adhiga mise eyda? qaala rajulu alkilaabu tunjibu ila 7 wa ama alagnaam fatunjibu ila 3. ninkii wuxuu yidhi eydu ilaa adigu 7 way dhali kartaa, ama alagnaam fatunjibu ila 3. adhiguna wax weeye hadday ugu badato 3 bay dhalaan. waa garannay. qaala ibnu adham, ibraahim ibnu adham wuxuu yidhi low nadarta xawlaka ayuhumaa akthar. haddaad egtid dhinacyadaada keebaa badan? qaala rajulu, ninkiiba wuxuu yidhi ara alagnaama akthar. waxaan arkaa adhigu inuu badan yahay. qaala ibnu adham, wuxuu yidhi ibraahim ibnu adham wuxuu yidhi alaysat hiya allatii tudbax wa tunqas wayaqilu cadaduhaa. miyaynan ahayn ta la gowraco ee lambarkeedu yaraado? miyuusan adhigu ahayn? qaala rajulu nacam, ninkii wuxuu yidhi haa. qaala ibnu adham haadihi hiya albaraka. barakadu wata. eydu in badan bay dhashaa, laakiin arki maysid sida adhiga oo kale. adhigu in yar buu dhalaa, laakiin aad buu fara badanya. waadna aragtaa adhiga habeen iyo maalin la gowracayo oo dadku hilibkiisa cunayaan. barakadu wataa. ninkii wuu fahmi waayey. wuxuu yidhi walimaada yakuunu dalika? waa maxay dee sababtu? waa maxay? limaada istaxaqat alagnaam albaraka duuna alkilaab? su'aal kalaa timi, maxaa barakada loo siiyey adhiga oo eyda loo siin waayey? qaala ibnu adham, wuxuu yidhi ibraahim ibnu adham, eeg hadalkaas hadal cajiiba weeye, waa xikmad. wuxuu yidhi lianna alagnaama tarqudu awala alleyl. adhigu habeenka wakhti horay seexdaan. wa taquumu qabla alfajr. fajrka ka hor bay kacaan. fatudriku waqta alraxma fatanzilu calayha albaraka. subxaana allah. waqti hore buu adhigu seexdaa. waqtiga fajrka la addimayana wuu soo kacaa. adhigu wuu soo kacaa. kadib waxay gaadhaan waqtigii raxmada. fatanzilu calayha albaraka. kadib barakada ku soo degta. wuxuu yidhi wa ama alkilaab tanbaxu tuula alleyl faida danaa waqtu alfajri hajasat wanaamat wayafuutu calayha waqtu alraxma fatunzacu minha albaraka. subxaana allah, kalaam cajiib weeye. wuxuu yidhi eydu habeenkii oo dhan bay ciyayaan, habeenkii oo dhan bay qaylinayaan. marka uu yimaado waqtiga fajrkuna dee dhulkaysa iswadhayaan oo waa seexanayaan. maxaa dhacaya kadib? wayafuutu calayha waqtu alraxma. waqtigii raxmada iyo barakada ka tegaya. fatunzacu. kelmaddaas waa kelmad cajiib weye. tunzac waa marka aad wixii qofka ka soo jiidaysid, xoog kaga qaadisid weye. tunzac waa marka wixii xoog lagaga qaadayo. fatunzacu minha albaraka. qul illahuma maalika almulki tu'ti almulka man tashaa wa tanzicu almulka miman tashaa. weye si xooga lagaga qaadaya. naزc baad maqasheen qofku marka uu naزc ruux, qofka marka ruuxa xoog looga qaadayo, laga soo jarayo ruuxa. tanzicu kelmad aad u adag weeye. marka wuxuu yidhi intaha kalaamuhu raximahullah. hadalkiisi halkaas ku dhammaaday, ilaa u naxariisto. marka wuxuu yidhi wuxuu ku dhameeyey qoraalka, falnatafakkar
ولنراجع أنفسنا أنه نفتينا دوغن نقولنا أنه فكرنا في سهراتنا سجيت كأننا فربضا وسمراتنا وحفلاتنا، فهي التي أذهبت البركة في أنفسنا وأموالنا وأهلنا وغيرهم. يعني سجيت كحفلة ذا هبينكي وحاسو لن باشالك هبينكي لسود تشيدو وحاسا موقتها بركة دي نقاضي نفتينا يمالكينا يأهلكينا، وأضاعت أعظم غنيمة أقوي إن قالوا مسي حوي وقتها ما شاء الله. مركا وحوي هذا الكاد حمري إبراهيم بن أدهم يونينكا، وهذا الحكمة وهي اللي فايدته. بارك الله فيكم. إن شاء الله سيشير قريب فيديوغا نهجعوا ضدك. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لك الشكر العظيم يا إلهي، وحمد عد حمد الحامدين. إلهي يا كريما في العطايا، ولسنا للعطاء مقدرين.